horraantii 1920kii ayaa ciidamada Britishku ay jabiyeen daraawiishta taasina waxay ku qasabtay sayid maxamed cabdulla xasan iyo ciidankiisii inay u baxsadaan dhinaca shabeellada sare waxayna tegeen degmada Iimey oo haatan ka tirsan gobolka Afdheer ee dhulka Soomaalida Itoobiya taariikhyahanka Soomaaliga ah Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa ka warramaya sidii uu sayidku ku tagay Iimey sayidku markaa wuxuu joogay nugaal iyo haddii la ku yahay dhulka la Sanaag ayay joogeen waa ka soo qaxeen meel dhexe markay marayaan oo meesha la yiraahdo Afdheer iyo haddii la ku siinayay doonaha la yiraahdo iyagoo maraya ciidan Ingiriiska ku soo kiciyay oo qabaa'ilkii Ingiriiska taabacsanaa ah halkaas sicin baa lagu galay waa lagu laayay galbana waa laga soo qaaday inta la gaabay iyagoo markaa furuq iyo fanto ay ku dhacday oo aad u liita marka ayay ka guureenoo haddii la ku yahay waxay tageen xagga iyo waqooyiga webiga Shabeelle markaasi waxay galeen dhulka caruusada meesha la yiraahdo Iimey go'aano Iimey oo buur yar ah halka ayay degeen markii ugu dambeysay halka ayaa sayidku wuxuu ka qalqaalay in uu yani daraawish dib u abaabulo oo u yabyabo markaas wuxuu ka bilaabay laba daarood buurti korkeedii laba daaroodna waa qalcado laga dagaal galo isagana guri baa looga bilaabay meesha daraawiishta kale oo dhowr boqol ahayd iyo xaasas iyo wixii ay wateen oo dad ahna hoos bay degeen buurta hoosteedii si dhab ah haddaba looma oga xanuunka uu u dhintay sayid maxamed cabdulla xasan waxaase la sheegaa inuu u dhintay cudurrada duumada ama hargabka midkood ama labadoodaba labadii daarood oo aan dhammaan oo weli qabyo ah ayaa sayidkii xanuunsaday goor subaxa fiidkina naftiba ay kala tageen waxayna ahayd sida uu sheegay Sir Francis Archer ninkii la oran jiray oo British Somaliland xukumay oo isaga loo aaneeyo inuu yahay ninkii tabiyey maxamed cabdulla xasan iyo daraawish wuxuu yidhi wuxuu dhintay 23 bishii November 1920 markaa daarihii qabyada ahaa dhexdoodii ayaa looga jeexay qabri aad u dheer bay hoos bay u dheereeyeen bay haddii lixadkii u sameeyeen hoos bay ka soo dhiseen markaa ayay sayidkii ku rideen markaa ayay aaseen sanadihii ka dambeeyay dhimashada sayidka ayaa dowladda Britain waxay dhulka uu ku aasan yahay sayid maxamed u dirtay sahano dhowr ah oo ay ku doonayso in lagu soo saaro qalfoofka sayidka taasina waxay keentay in madaxdii daraawiishta iyo taageerayaashii sayidka ay ka saaraan qabrigii uu ku aasnaa oo ka dulqodnaa buurta Sarmaan ee magaalada Iimey Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa ka warramaya sida ay taasi u dhacday muddo kadib ayaa Ingiriisku waxa la yiri wuxuu soo diray niman uu safar ku magacaabay oo safar ka dhigay oo dhulka xabashidu gumaysanaysa dhex mara oo uu yiri qalfoofkii iyo haddii la ku wada lafihii sayidka soo bixiya oo soo qaada malaha waxay doonayeen wuxuu rabay in aysan noqon meel lagu hirto oo nin haddii la ku wada la xurmeeyo waa taalo oo kale qabrigu buu ahaan lahaa oo hawshii uu waday iyo dagaalkii gumaysiga uu ku qaaday in aan mar dambe la qaadin marka inuu calaamad oo dhan ka tirtiro meesha uu joogo laakiin markii la maqlay oo ay daraawiisha maqashay in sayidka lagu soo maqan yahay waxa uu sheegayba meeshii waa laga saaray daraawiisha kama saarina waxaa ka saaray marka nimanka la yidhaahdo reer daadhi oo caruusada madax u ahaa oo xaakim isaaq daadhi uu ka mid ahaa waa ka saaray isagii laftiisi baanu aragnay wuxuu yidhi halkii baanu ka saaray sayidkii marka ay sayidka meesha ka saareenna dee iyagu sida ay sheegayaan raggii ka saaray waxay yidhaahdeen wax iska bedelay inna lama arko jirkiisi iyo lafihiisi iyo mararka qaarkood inuu nool yahay aan moodaynay indhihiisa marka waana dhowr sano kadib waxaan haddaba si sax ah loo ogeyn halka markii dambe lagu aasay sayid maxamed iyadoo meelo kala duwanna lagu sheegay inuu ku aasan yahay haatanse ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa bilaabay baaritaan taariikheed oo ay ku baadi goobayaan halka uu ku aasan yahay sayid maxamed Cabdifataax Suleymaan waxa uu ka tirsan yahay xafiiska dhaqanka iyo warfaafinta ee gobolkaasi ee wada baadi goobka qalfoofkii sayidka safarkaygan talagalka horta hawshan maxaa yeelay gurigeygii waxaa iska kaashaday moogtahay xafiiska warfaafinta dhaqankeeda xiiska kolka team ayaa la sameeyey loo xil saaray oo baadi goobaya xabaashii sayidka maadaama aan la ogeyn halka uu ku dambeeyey xabaashiisa wala qaadraac aan sameynay ayaa waxaa la sheegay in ummadii Soomaaliyeed halka deganeyd iyo caruushada oo oromada ka tirsan iyo amxara ayaa waxay sameeyeen inay sayidka ka xeeyaan halka ka qaadan iyagoo uga baqayay in sayidka qalfoofkiisa inay la qaato yani madxaf yalla dhulka Yurubiya in la geeyo uga baqayay sababta ka dambeysay in sayidka xabaasha laga faqo xabaasha lagu aasay 1920 ayaa laga faqay
معناه waxa weyn halka wuxuu ku aasnaa ilaa 6 sano 6 sano oday aan la kulanay oo jiray 167 oo la yiraahdo Makaayil ayaa waxa uu noo sheegay 6 sano sayidku isagoo oo gadkiisii iyo kafankiisii oo dhan halka xumurtu kaliya 7 meedkiisa yani 6 sano oo aasnaa ayaa laga soo faqay kolka waxa dhacday in loola kacay dhinacaayo maxaday baali gaaraan meesha la yiraahdo Raygita ayuu ku aasan yahay laakiin taariikhyahan Axmed Faarax Cali Idaaja oo waraystay dadkii ka bixiyay sayidka qabrigiisa Iimey waxaa loo sheegay in la geeyay deegaanka Jarar oo ka mid ah gobolka Afdheer ee kililka shanaad waxaa ka isaaq baadhi weey waa boqorkii caruusada waana qoladii uu sayidku magantan ay u ahaayeen daraawiishka markii hore marka u maleynaayo xaaji isaaq baadhi cid kaga yani waroon aaskii sayidka iyo waqtigiisii inuu jiro nin mutacalimna uu ahaayo nin waxa uu sheegayo garanaya ayuu ahaa xamar bunada deganaa 1977 waliba meesha waxaan ku wareegsanayna la yiraahdo leego oo xamar u dhow wala weyn ah ayuu deganaa xaaji isaaq baadhi marka reer baadhi waa qoyskii maganta loo ahaa meesha lagu joogayba af Soomaaliga aad buu u yaqaan nin wuxuu ahaa baxar ah oo cilmigan kalena aad u yaqaan marka nin uu kalsoonaan kara warkiisa waa marka waa dindig meesha la geeyay meesha jaltari meesha la yiraahdo marna waxay oran jireen Jarar intii isu jiraan ma aqaan anigu kulay meesha xaaji isaaq sheegay waa jaljali meesha la yiraahdo hase yeeshee Cabdifataax Suleymaan oo ka mid ah guddiga raadraaca ku wada helitaanka qalfoofka sayidka waxa uu sheegay in qisada soo warinaysa in sayidku uu ku aasan yahay Jarjari ama Jarar ay ahayd mid lagu qaldayay gumaystaha Britishka arrintaas ma jirto Jarar waa marin hawaabin lagu sameeyay dawladda Ingiriiska si aanay u ogaan xabasha maxaa yahay sayidka meesha waxa la yiraahdaa Raygito halkaas inuu ku aasan yahay dadkii sayidka taageerayaashiisa ahaa ee qalfoofka qaaday ayaa sameeyay taxadar weyn inay baabi'iyaan raad kasta oo suurto gelin kara in gumaystaha Britishku ay soo raaci karaan kuna ogaan karaan halka uu ku aasan yahay Sayid Maxamed waxaa la sheegay in meydka sayidka ay galbiyeen ilaa 20 rati oo la wadeen aruushada Soomaalida ama xalada ayaa lagu qaaday xabaashiis 20 rati la keenay in 5 aruus ay wadeen maxay shanna maxara ahaayeen shanna maxay Soomaali ahaayeen soo sheegay ay shanna xagga hore ka mareen shanna gadaal ka mareen saas ay ku ambaxaan ku qaadeen taasoo ay raad luminayeen gumaystuhu soo raad gurin khubarada dhaqanka ismaamulka Soomaalidu waxay sheegeen in loo tilmaamay 22 xabaalood oo ku yaala Raydito gobolka Baali oo la sheegay in laga yaabo midkood inuu ku aasan yahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxayna sheegeen inay adeegsan doonaan farsamada hidaraaca ee DNA-da si ay ku aqoonsadaan qalfoofka sayidka kan uu yahay Guuleed Casoowe waa madaxa xafiiska warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolka ismaamulka Soomaalida waxaan weydiiyay muhiimadda ka dambaysa baadi goobka qalfoofka sayidka laba muhiimadood ii leeyahay sayidkii iyo khaasatan qalcadda email muhiimadood ii leedahay muhiimadda koowaad waxa weeye horta waa dhaqan iyo mataqaanaa wax deegaankii ka soo jiray oo waxa weeye in la kobciyo u baahan mid kalena waan ka eegaynaayo qalcadda email inaan dib u dhisno waxaanu ka eegaynaa halka dhinaca dalxiiskaanu ka eegaynaa oo imika meelaha dalxiiska kobcintooda waan soo badinaynaa marka anagu waxaan ka eegaynaa dhinaca dhaqanka iyo hidaha iyo taariikhdii soo jireenkeed baan ka eegaynaa laakiin xag dagaal iyo xag mataqaanaa halgan iyo gobonimo dooni waxa kama eegayno waxa uu sheegay Guuleed Casoowe in haddii ay helaan haraaga meydka sayidka inay ku soo celin doonaan qabrigiisii ugu horreeyay ee buurta Sarmaan ee magaalada Iimey waxaan doonaynaa qalcadii Iimey in dib ugu soo celino kulley waxaa imanaya bilateral negotiation baa imanaya oo waxaan imika ognahay in 95% inuu deegaanka Soomaalida meel ka baxsan ku aasan yahay marka kulley deegaanada Oromiya iyo Dabuush ama shucuubta koonfureed oo 22 xawaalood imika aan beegsanayna ay ku yaalaan waxaan doonaynaa negotiation baan galaynaa imika dad xidkaan helay DNA-ga oo qardir daba qarnaadi saxwada Kenya xigtiisa markaan negotiation ka dhameysano ay xigtidana DNA ka helno hadii 22 xawaalood mid kamid ah ku guuleysanayno noqdo mataqaana haraaga Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Allah naxariiste waxaan jecelahay inaan mataqaana si sharaf lagu soo celino mataqaana xabaashiisii ugu horeysay lagu aasay qalcadii mataqaana ku taala buurta Sarmaan ee Iimey Xasan Cawil Ilaaye oo 105 jir ah kana mid ah dadka farakutiriska ah ee hadda nool ee caruurnimadoodii la kulmay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu ii sheegay inay ka sii haboonaan lahayd qalfoofka sayidka in lagu soo celiyo deegaanka Buuhoodle ee uu ku dhashay haddii lagu soo celinayo waa fiicnaan lahay waa ku fiicnaan lahay inaynu halkaa ku siyaarayno haddii alla qadarka ugu dhaxayo diirka okhino Buuhoodle waa ku reynay oo tana inoo dhow oo waa ku fadhin jiray tana waa gurigu fadhin jiray deganaan jiray qarniga ku haystay sayidkii
maxaad ku xasuusataa sayidka iyo daraawiishtii sayidkani wadaadaha boqorab waxaa oo lagu shirsan yahay oo dee arniga waxaa xukumayay hadda sayid maxamed.